السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. walaalaha qaaliga kusoo dhawaada channelkeena. haddii ilaahay ka raali noqdo, muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa laba dembi oo ciqaabtooda qofka loo soo dedejiyo inta uu adduunka joogo, aakharana ku sugaayo. waa laba dhibaato soo maaha, waxaan aakharana kaa haraynin oo meel kuu yaalo, adduunkana ayagoo degdegaya kugu imaanayo. waa wax mudan inaad iska ilaaliso. si aad iska ilaalisan waxaad u baahan tahay inaad aqoon u leedahay ku yihiin dembiyada noocaas ah. laba ka mid ah ayaan maanta ka hadli doonaa. midka koowaad waa baqayga, gardarrada, qofka daandaansiga badan ee dadka iska maaga, ee xadgudubka badan leh. adduunkaa looga jaraa, aakhare intaanba la gaarin. Soomaalidu waxay yidhaahdaan yeelaa wuu iloobaa, laakiin la yeelaa ma iloobo. qof aad mar wax ku samaysay baa laga yaabaa inuu noloshaadoo dhan la dego oo aad ka soo kaban weydo waxa kaa soo gaaro. sababaha ay ciqaabtiisa usoo degdegayso, ilaahay baa aad u neceb dhaqankaas inaad dadka isku taagtaagta ah, sababtoo ah kibir baa kaa keenay. kibirkana ilaahay wuxuu yidhi anaa leh, ayaan la igu qabsanin. cidda ku qabsatana way eedaysaa adduun iyo aakhirabo. sidaas daraadeed qofka asagay dan ugu jirtaa inuu hadallada ka fiirsado, oo ereyyadood si fudud u tiri baa wuxuu geysan karaa uur ku taalo. gardarradan laga digaayo keliya kibir ma keena, ee waxaa kaloo keeno aqli yari. haddii adiga aad isku tuhmayso inaad tahay qof fagfag badan oo dadka juqjuqeeya, waxaad ogaataa aqligaagaan kugu filnayn. waayo qofka aqliga ku filan haysta wuu xisaabtamaa, wax walba uu sameynayo waxa kasoo gelayo ka fikiraa. haddaan maanta qof xanto oo wuxuusan ahayn aan anigu ku sifeeyo, ama aan naboon dhaho hebel baa waxaa xaday, ama waxaasaa lagu arkay, amaba hadal anigaba aan i qusaynin baan dhaxda iskaga soo riixay oo qof waxaan waxba iga gelin kula dagaalay. inta aan hawshaas ku dhaqaaqin ka hor, haddii aan isdhaho maxaa afaarahan aniga i geliyey, maxaase iga soo galayo, inaan khaldanahan garowsan. waxaa la yidhi qof aan waxa soo socdo garan, waxa joogana ma garto. taas macnaheeda haddii aan sidaa u xisaabtamo, waxaan ogaanayaa waxaan waa dulmi aan ku socdo. haddii aan galano wax aan guuldarro iyo ceeb ka ahayn, ma faa'iidaayo. sidaas daraadeed waa inaan ka gaabsadaa. waa sababta Soomaalida ay u tiraahdo saddex lama dego: doqon fiiro taqaano, fulay daandaansi yaqaani, iyo geesi damac yaqaan. doqonku asaga waa bad gaar ah oo waa aqli yarida aan ka hadlayno. mana aha doqonkii cudurdaarka haystay ee duurkiisa iska daaqayay. waa mid inuu aqli qabo isku arko, laakiin siduu ismoodaya aanan ahayn. fartaad qaadaba marka wuxuu ku moodaa in asaga ula dan leedahay. waa un balaayo adiga ku fiirsanayso. waxaa kaloo yidhaahdeen doqonku wuxuu leeyahay 12 indhood, intabana wuxuu ku eegaayo iskaga ilaaliyaa dadka asaga u dhadhow oo ehelkiisa ama dariskiisa ah. kuwa unbuuba cadow u yaqaanaayo difaac kaga jiraayo, fartay qaadaan buu u fiirsadaa. fulayga daandaansiga badanna wuxuu rabaa cid kastoo u arko inuu isku taago, bal inuu ka badiyo. asagu ma xishoodo, waxba ma xeeriyo. marka la garaaco unbuu mihirsadaayo uu lan yeelan, laakiin inta ka horeyso ehelnimo kuguma dhowro oo ehebin kuguma daayo. hadduu kaa xoog badiyo ku dilana, waa fulay ninkuu lagda kama kaco oo jid buu kaala bixi. marka dantaada waxay ku jirtaa bay leeyihiin inaadaba la degin oo daris la noqoninoo meesha uu joogo aad ka fogaato. geesi damac yaqaanana waxaa la yidhi halistiisuu leeyahay. cabsanna maayo, wax walbo wanaagsanna asagaa isla rabo. fuligaaba la qaatay oo marka haddii aad iska garaacda kaa haraayee, kan kaana hari maayo. waa wax aarsi jeceloon laga adkaan karin. marka wuxuu ka mid yahay dadka dulmiga badan. dulmigana
ilaahay baa reebay oo xaaraantinimeeyey. waxa uuna yidhi yaa cibaadii addoommadaydiiow inii xaramta dulma calaa nafsi, dulmiga nafteydan ka xaaraantinimeeyey, wajacaltahu baynakum muxarama, dhexdiinana waxaan ka dhigay mid xaaraan ka ah, falaa tadaalamu ee ha isdulminina. sidaas daraaddeed waa muhiim qofka inuu iska ilaaliyo dulmiga oo dadka uusan ku xadgudbin. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay haddii qofka uu qof kala dulmiyo oo uu qofkaasi ilaahay baryo u dacwoodo in baryadiisa lagu xambaarayo daruuraha, samadana loo furaayo, socodkay socotana meelna aysan ku hakanaynin ay rabbi gaarayso, uuna dhahayo wacizatii wajalaalii, sharafkayga waxaan ku dhaartay weyninkayga lanansurannaka walow bacda xiin, waan kuu aari, waan ka jawaabi waxa lagugu sameeyey walow bacda xiin, muddo kadib ha ahaatee, yacni isla haddaba ha noqoto ama sanado iyo bilo kadib ha ahaatee, ballan weeye in wixii laguu geystay la eedaa. ma qofuu ilaahay u dhaartay baa nool, dhibaato aad ruux u geysatay baa laga yaabaa inaad caafimaadkaaga ku weydo oo cudurro xun kugu dhacaan, khasaaraa laga yaabaa inuu ilaahay ku geliyo oo aad shil gasho ama hantida kaa burburto ama lagu dhaco ama guri kaa gubto, ilma kaa waasho. balaayooyinka qaar baa la soo dego dhib adiga aad geysatay darteed. gardarradu marka waxay ka mid tahay dembiyada aan aakharo oo keliya lagaaga jari doonin ee adduunka kuugu soo degdegaya. qofkii mar in laba wax geysta oo ku nabad galay, dadku waxay yiraahdaan qofkaas wixii uu sameynayay barwaaqooba kasii qaaday. waa khalad inaad sidaas tiraahdo. qofkan wax u dambeyn doona adiga ma ogid, cirab xumaa sugaysa hadduusan ka toobad keenin oo ilaahay u naxariisanin. wuxuu alla yidhi walaa taxsabanna allaha gaafilan camaa yacmalu daalimuuna, hamoodina inuu ilaahay moog yahay kuwa daalimiinta waxa ay sameynayaan. inamaa yu'akhiruhum liyowmin tashkhasu fiihi alabsaar, waa loo dibdhigay waxa ay geysanayaan oo maalin ay indhahooda taagmi doonaan baa lala sugi. waxa ku dhici doona dartiiba indhaha la taagi doonaan oo la qallafayaan oo araggooda uu rogmi. dulmigu wax sahlan ma ah. waxaa nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam ma taqaanaan qofka cayrta ah. saxaabadu waxay yiraahdeen rasuul allah waa qof aan waxba haysanin oo shiid ah oo shaqo la'aan aan shilin ka dhicin. waxa uu yidhi kaama ahee inal muflisa, kan cayrta ah waa mid ma ya'ti yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha wuxuu la imaan doonaa bisalaatin, salaad, wasiyaamin iyo soon, wasakaatin iyo sako. waa qof yacni camalo wanaagsan badin jire oo kayd fiican haystaa imaan doono, laakiin wixii oo dhan dad baa loo qaybin doonaa sababtoo ah dulmilow buu ahaa. dembiga labaad ee ciqaabtiisu ay soo degdegto waa qaraabo goysnimada. qofka ehelkiisa gooya ee xiriirka u jiro, ilaahay baa asna xiriirka u jaraayo. raximku alla u dacwooday wuxuu yidhi ilaahayow dadkii way i jireen oo xaquuqii aan ku lahayn way noo diideen. wuxuu alla yidhi maxaad ku qanacaysaan? waxayna yidhaahdeen man wasalanii wasalahu allah waman qadacanii qadacahu allah, kan ijaro inaad ilaahayow jarto, kana xiriiriyana in alle uu xiriiriyo. wuxuu ku yidhi alle ballantaas waan idiin qaaday. qof kasta oo raxinkiisa gooyo ilaahay wuu gooyaa, ciriiri baa meel kasta laga geliyaa, aakhiradana su-aalaa u yaalo. raxinka marka xiriirintiisa qofka asagay dan ugu jirtaa oo wuxuu ku helayaa in cimriga loo dheereeyo, sida xadiis kale uu nabigu ku sheegay sallallahu calayhi wasallam in irsaaqada loo waasiciyo. waxa uuna yidhi man axaba qofkii jecel yafsada in loo waasiciyo lahu asaga fii risqihi arsaaqdiisa, wayansiya oo loo dheereeyo lahu asaga atharihi raadkiisa ama cimrigiisa in loo barakeeyo qofkii rabo, falyasil ha xiriiriyo raximahu qaraabadiisa. xadiiskaasi waa muttafaqun calayh. haddii qofka raxinkiisa u roonay xiriiriyo uu helayo cimri dheerar iyo irsaaq waasac ah, kan raxinkiisa jara waxaa laga filanayaa in irsaaqda lagu ciriiriyo oo faqri qoorti loo geliyo, cimri degdegna lagu rido. sidaas daraaddeed ma doonayne aan iska ilaalino raxinka oo la jaray ka imaataay. qaraabo goysnimaduna waa dembi adduunkana aad ku dhadhamin doonto, aakhirana dhibkiisa aad ugu tegayso. ilaahay baan ka magan galnay. haddaba labadan dembi haddii aad doonayso inaad ka badbaadi, kow dulmiga iska ilaali oo af iyo adin doono dadka ha ku dhibin.
wixii ehel ku ahna xiriirinta laga hadlaa inaad dadka oo dhan lacag siiso qof kasta biil u qortaa ma aha waa inaad dadka wanaajisaa waa inaad wax kala dilaya ka ilaalisaa xiriirintu salaanta ka mid ah dadka inaad ka warhayso oo xaalkooda meeshuu maraya aad ogaato oo aad booqato kan xanuunsan oo kan baahan aad u hadasho oo ka murugaysan aad niyadda u dhisto Sufyaan Thawri Allah u naxariistaa waxa uu dhihi jiray ma arkin cibaado uu adoonka rabbigiis ugu dhawaado oo la mid ah niyad dhiska uu qof u sameeyo walaalkiis muslim ah macnaha cibaadooyinka la sameeyo kuwa ugu fiican waa inaad qof niyadda u dejiso halkaasi waxaa noogu ekaaday cashirkii aan ka diyaarinay labada dambe ee adduunkana loo soo dedejiyo qofka ciqaabtooda aakhiradana looga jari doono waxaan Ilaahay ka baryaynaa in kuwa isxiriiriyo oo isxillooro naga dhigo sharteennana ummadda ka qabta shartoodana naga reebo intaas muuqaalkeennii waa ku eg aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum